maalmihii la soo dhaafay waxay u ahayd guud ahaan dalka Mareykanka 3 maalin oo ka sheegnaa dalka Mareykanka. Waa u jeedaan baabuurtu waxa ka hooseeya waa baraf. Bareega haddaad ku qabato adoo ordi uusan qabanin gaariga kula dhacayo ama uusan bareega u qabanin gaariga ka horeeya aad ku dhufanayso. Waxaa ka sii darnaa inta qabowga xad dhaafka ah maaragtay lafaha iyo feeraha ka gelaya. inta hadda aniga aan garanayo taqriiban ilaa 3 ruux ayaan garanaya oo maaragtay uu shil baabuurtii la galay, kuwa meel kale dhacay, kuwa meel kale ku dhuftay. ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka badbaday laakiin baabuurtii ka jajabeen. walaalahayga aan jecelahay ee inta barafka uu ka deganow dardaarankan qaata, waad ku badbaadaysaan idinkiyo ilmihiinaba. laazima oo aad ugu adkeeya arrintaas. waxay tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam habeen baa madiinada munawwara ayaa roob ka da'ay, dhulkii baa mugdi noqday, waxbaa la arki waayay. kadibna nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabi kamid ah wuxuu ku yiri saxaabadiisa akhri, maxaan akhriyaa? wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u dardaarmay falaq iyo naas oo uu yiri qofka akhristo bala alla ma tuso. maxaa yeelay hadda shilku aad buu u fudud yahay, shilku aad buu u fudud yahay. jidadkii baa sidaasa oo maxaa barafku u da'aya, xilli baraf baa lagu jiraa. qabowga daran laftirkiisa caadi inaba ma aha. sifa alla inoo badbaadiyo. hadda waxaad arkaysaan halka aan taabanaya waa biyo tuumbo maaragtay markuu roobku doo saqafkuna biyaha kasoo daadanaya, tuumbadii qaadaysa way biyihii da'aya saa noqday. kuwii daadanayay ayaa intaysan dhulka ma gaarin sidaa noqday, dhagax bay noqdeen. biyaan maalin wada gaareen saartay waxayba noqdeen dhagax, maba la taaban karo biyihii. shaah baa intaan soo gataan sagoo haafa meesha ugu tagay, waxaan usoo tegay shaah ayaad u malayso in maaragtay wax kale lagu daray. waxaad arkaysaan waa baraf. barafkan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay inuu yahay qayb kamid ah naarta oo soo neefsata. marka maadaama aan ku jirno maalmo adag oo baraf iyo qabow intuba ay isgarab socdaan, waxaan ku badbaadi karno fadliga alle ka soko. waxaan ku badbaadi karno waa dardaaranka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ee uu ina siiyey. qofku inuu wadiifada qaato ilaahay wuu ku badbaadin karaa naxariistiisa, laakiin waa inaad sababta la timaado. dardaaranka nebiga qaado, isagaan ku badbaadaynaa. 3 maalin la soo dhaafay waad arkaysaa siyaara Washington waxa ka dhacay, midka dabada ku sibqanaya, midka kufaya, labada isku dhacaya, baabuurka intuu istaajiyo mid kale ka daba tegayo. maxay ahayday bimacnaa waxay ahaayeen duufaano iyo baraf iyo qabow iswada. 3 wax baa isgarab socday, waa barafkii, waa dabaylo iyo maxay ahayday qabow. barafkii markuu soo dhaco dabayl baa wada, kadib dhulka ku dhufan, dhalowba noqonba, gaarigu ma istaagayo, qofku ma istaagayo. sifaynu u badbaadno waa inaan qaadano dardaarankii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. walaalahayga inta baraf ka maaragtay uu ka deganow dardaaranka nabiga sallallahu alayhi wasallam aynu qaadano, isaga ayaynu ku badbaadaynaa, isaga ayaynu insha Allah tacaala ilaahay nagu badbaadinayaa. waliba bila adag baynu ku jirnaa, ilmaheena aan barno ha ku baxaan. bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah lagu baxo. quraankana hala laazimo, ilaahayna hayna badbaadiyo. sii gudbi walaalahana u sheer gare. assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha dhamaantiin waa idin wada salaamayaa ku xiran channelkeena Sam Ibrahim channel. waa u jeedaan barafkii Mareykan, ilaahay nagu nabadgeliyo dhamaantiina. inta ku nool wadamada qaboobaha iyo barafka iyo duufaanaha ka socdaana, dabaylaha barafka ka socdaana iyagana ilaahay ku nabadgeliyo. aad baa idin wada salaamayaa. waxaan idin leeyahay meel aad joogtaan baa Allah idinku wada nabad yeelo. anaga waa caafimaad qabnaa, inta ku dhimatay Allah u naxariisto. barafkan dad badan ayaa shilal galay oo ku wada dhaawacmay oo ku wada maaragtay dhibkooda gaaray. ilaahay subxaanahu wa tacaala ka wada badbaasho intii muslimiin ah iyo dhammaan maaragtay intii Soomaali aba. aad baa idin wada salaamaya. haddaa igu cusub tahay channelka subscribe ka saar, haddii aadan igu cusbayna like-ta iyo commentiga quruxda badan ayaa lagaaga baahan yahay. waxaan idin leeyahay nafteydii naftiina waxaan kula dardaarmayaa cabsida ilaahay insha Allah tacaala. ilaahayna naga nabadgelsho masiibooyinka socdo adduunyada. maaragtay qofba waxbaa lagu imtixaamaa, dadba waxbaa lagu imtixaamaa. ilaahay imtixaanka anoo maaragta noo khafiifiyo dhammaanteenba. ilaahay imtixaan iyo dhibaato weyn nama tusiyo. in waxyaabahan insha Allah iska dhamaan doonaan. qofka ilaahay ugu talagalay waa ku dhintay, kii kaleetana ilaahay wuu kasoo saaray. aad baa u wada mahadsantihiin dhammaan walaalaha ku xiran channelka. waa idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan eed iila socotaan. ilaahayna waxaan ka baryayaa insha Allah tacaala dad wanaaga markasta wadaaga oo iyo khayrka ilaahay inuu naga dhigo oo xumaanta aanan wadaagin.
ilaahan ka magan galnay waxaan idin leeyahay intaan dib dambe hawada ugu kulmi doono videoga xigaa waa anigoo idin leh salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu